dadka waxaas ku kacay Soomaalnimo sheeganaya dad arxmayaala manaxayaala aanan aqoon dadka naftooda qiimo lahayn tuuga qiimaysan lahayn baa waxaan ka dambeeyay insha Allah oo yimaayno waa waardiin doona hadii loo yiraahdo faahfaahinta dheeraad ah ayaa laga helayaa qasaaraha ka dhashay qaraxyo xoogan oo maanta gilgilay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kuwaas oo ahaa ismiidaamin sida ay shaaciyeen laamaha amniga magaaladaasi qaraxyadan oo ahaa labo ayaa waxa loo adeegsaday gawaari nooca xamuulka qaada waxaana lagu weeraray xerada Lamagalaay oo ay ku taalay madaxtooyada Hirshabelle ee gobolka Hiiraan ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in qaraxa koobaad uu ka dhacay afaafka hore ee xarunta halka qaraxa labaadna uu isna ka dhacay gudaha dhismaha la weeraray wararka ayaa intaasi ku daraya in dhimashada ilaa iyo haatan la og yahay ay kor u dhaafayso ilaa 10 ruux oo isugu jira mas'uuliyiin askar iyo dad shacab ah oo ka agdhawaa goobta la weeraray mas'uuliyiinta ku geeriyooday weeraradan maanta ka dhacay magaalada Beledweyne waxaa ka mid ah wasiirkii wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabelle Dr. Sakariye Hurre gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Hiiraan ee maaliyadda iyo siyaasadda Abuukar Maadey halka ay dhaawacyo soo gaareen taliyihii daraawiishta Hirshabelle Axmed Dirir iyo gudoomiye ku-xigeenkii maamulka iyo maaliyadda degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan Cabdikaafi Shire xaaladda magaalada Beledweyne ayaa weli ah mid cakiran waxaana socda tirakoobka iyo gurmadka loo samaynayo dadkii ay waxyeeladu ka soo gaartay qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan taliyaha magaalada Beledweyne Bishaar Xuseen Jimcaale ayaa qaraxyadaani ku tilmaamay musiibo isagoo intaasi raaciyay inaysan oyn doonin oo ay arsan doonaan ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأنت بقلب الولي راحن على المصيبة الصور كل شيء سوى مليين الشباب وحياة تعظم مرة سنعي ما أنكو بيني وحانو خلق بدأ كسر تقالان إلي تامسيبين كالين السمايان وضب الإسلام عن كسر تقرين مصيبة عضي وعلوس وخد على ما تدري بدو Beledweyne waxaana ku mid ah fara badan oo mas'uuliyiin iyo shacab iyo askar bay isugu jiraan haddana waxaan ku jiraa tilkoobkii iyo qaawada iyo dadkii roobtay insha Allah hadii loo yiraahdo intaan sii doonaa mas'uuliyiinta kulliga waxaan ka mid ah maaliyadda gobolka Hiiraan Allah u naxariisto iyo mas'uuliyiin kale oo xildhibaanada Hirshabelle dibaan ka saxaabiyay doona hadii loo yiraahdo haddana waa dul taaganahay dad fara badan oo meeyno ku hoos jiro dad dhaawacan oo ku hoos jiraan waa dul taaganahay insha Allah waxa soo dhanna waxaan soo sheegi doonaa dibaan ka soo sheegi doonaa waxaana ka xumahay dadka waxaas ku kacay Soomaalnimo sheeganaya dad arxmayaala manaxayaala aanan aqoon dadka naftooda qiimo lahayn tuuga qiimaysan lahayn baa waxaan ka dambeeyay insha Allah oo yimaayno waa waardiin doona hadii loo yiraahdo weeraradan qaraxyada loo adeegsaday ee ka dhacay magaalada Beledweyne ayaa ku soo beegmay xilli gobolka Hiiraan uu ka socdo hawlgal culus oo ka dhana kooxda maleeshiyada Al-Shabaab qaraxan ka dhacay maanta magaalada Beledweyne ayaa sidoo kale yimid saacado kadib markii dawladda federaalka ay shaacisay in hawlgal ka dhacay gobolka Jubbada Dhexe lagu dilay Cabdullaahi Nadiir oo ka mid ahaa aasaasayaashii kooxda Al-Shabaab isla markaana isku diyaarinayay inuu bedelo hogaamiyaha kooxdaasi qaraxyadan maanta ka dhacay magaalada Beledweyne waxaa cambaareeyay madaxda dawladda federaalka iyo madax xilal kala duwan dalka ka soo qabtay kuwaas oo ku tilmaamay inay fal bahalnimo ahaa weerarada maanta lagu qaaday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane Xamse Cabdi Barre ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkii bahalnimada ahaa ee maanta ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo dad aan waxba galabsan lagu laayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda ayaa amray wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha kale ee dawladda in gurmad degdeg ah loo fidiyo dhaawacyada ka dhashay qaraxyadii maanta ka dhacay Beledweyne falkaani wuxuu cadeyn u yahay sida ay wali ugu hamuun qabaan kooxaha nabadiidka ah daadinta dhiigga dadka shacabka ah waana mid ay rabaan inay ku niyad jabiyaan dadka u istaagay dagaalkooda
dhiigga dadkeena qiimaha badan ee maalin walba ay daadinayaan ma ahaan doono mid looga xari doono ayuu yiri ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xamse Cabdi Barre ayaa bulshada Soomaaliyeed waxa uu mar kale ugu baaqay inay xoojiyaan dagaalka lagu cirib tirayo kooxda Al-Shabaab ee dhibaatooyinka u geysanaya dadka Soomaaliyeed. Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ugu dambeyntii tacsi u diray qoysaska iyo eheladii dadkii ku naf waayay weeraradii maanta ka dhacay magaalada Beledweyne, wuxuuna alle uga baryay caafimaad degdeg ah inuu siiyo dadka ay dhaawacyadu ka soo gaareen qaraxyadaasi.